بسم الله ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada ardaydeena qiimaha badan leh koorsadani WordPress complete course oo aan ku baranaynay WordPress version 6.5. insha Allah taala sharkana maanta waxaan ku qaadan doonaa sida loo sameeyo pages. sababtoo ah pageska aad ay muhiim u yihiin marka la joogo WordPress website blog ama marka la joogo website guud ahaanba. sababtoo ah website-ka oo la sheegay oo dhan waxa uu ka kooban yahay pages iyo posts ayuu ka kooban yahay. marka taasi oo aanu la jeedno tusaale marka inaan pages aan samayno marka micno weyn ay inoo samaynaysaa. haddaba marka si aan u samayno pages marka hore waxaan isla tagi doonaa website aan isla tagi doonaa website-kaani oo lagu magacaabo Iqra Institute of Technology oo ah website-keena anaga oo aan maamulo aan ka ahay. sidoo kalena anigu aan gacantay aan ku sameeyay ayaan joognaa. kadib halkaan waxaad u jeedaa home waa page, course list haddii aan ku dhufano asiguna waa page kale. sidoo kale qaybtaani pages ayaa ku qoran. waxaad u jeedaa pages haddii aan dul tagno about us, instructor, blog iyo contact us, intaas oo page ayuu ka kooban yahay. marka pages kuwaani ayaa lagu magacaabaa. marka muhiimadaasi ayay leeyihiin. waa ujeedaa all courses ayaad ujeedaa Canva masterclass course iyo sidoo kale Excel for accounting ayaad ujeedaa. sidoo kale personal development course ayaad ujeedaa. affiliate marketing course ayaad ujeedaa. marka qeybahani weeyaan marka insha Allah taala. haddaba pages si aan u tagno website-kan aan ku laaban doonaa. kadibna pages ayaan leenahay. kadib waxaan leenahay all pages ayaan ku dhufan doonaa. all pages markaan ku dhufano kadib halkan waxaad ujeedaa laba page ayaa hadda ku jira oo si default ah. midkaani waa privacy policy, marka midkaanina waa sample page. marka midka privacy policy-ga ma delete garayn doono oo aan haysan doonaa. mar dambe ayaan gadaal aan ka bedeli doonaa waxyaabaha dhexdiisa ku jira marka qoraalka ah. balse midkaani waxaan dhihi karnaa trash ayaan dhihi karnaa. sidoo kale waxaan dhihi karnaa haddii aan rabno qaybtaan waxaan leenahay aan dooran doonaa. kadibna bulk actions ayaan ku dhufan doonaa. kadib waxaan leenahay move to trash ayaan leenahay. move to trash markaan dhahno kadib apply ayaan leenahay. apply markaan dhahno kadib halkan waxaad ujeedaa one page move to the trash ee lagu leeyahay. sidoo kale undo ayaan ku samayn karnaa oo undo ayaan dhihi karnaa. haddaba marka waxaan leenahay marka qaybtaani add new page ayaan leeyahay. marka add new page markaan dhahno kadib halkan add title ayaa lagu leeyahay. page-kaani ayaa magaciisa aan ku qori doonaa. waxaan leenahay marka about us ayaan leeyahay. marka about us markaan dhahno kadib page-kaani marka halkan waxaad ujeedaa page ayaa kuu soo qormaysa. haddii aan blog joogi lahayn blog ayaa halkan kuu soo qormi lahayd. halkan visibility-ga waxaad ujeedaa public inuu yahay. hore aan usoo marnay. sidoo kale publish immediately ayaad dhihi kartaa. sidoo kale template-ka waa isku mid. sidoo kale page-kani qaybtani hore waxa uu la mid yahay postigi ayuu la mid yahay marka qaybahani hore. balse qaybtani marka aad ka soo dhamaato qaybtani labaad halkaani inta aadan gaarin featured images postiga wuxuu lahaa qayb lagu magacaabo categories iyo sidoo kale wuxuu lahaa tags. balse page-ku ma lahan ama page-ka looma sameeyo category iyo tags looma sameeyo page-ku. sidoo kale xitaa set featured image ayuu leeyahay hadda balse page-ka looma sameeyo sida featured image. sidaas ayaan kula talinaa inaadan u samaysanin adiguna. intaa kadib qaybtani discussion weeyaan. marka allow comments ayaad dhihi kartaa. page-kan in comment laga bixiyo u ogolaa ayaad dhihi kartaa balse ma dhihi doono. marka pageska sidaasi ayaa loo abuuraa asiguna. sidoo kale intaa markaan samayno kadib waxaad samayn kartaa inaad soo geliso halkaani qoraalkaagi. si aan u soo gelino halkaani marka page-kan ama website-kan ayaan tagi karnaa haddii aan rabno. website-kani hore aan u tagnay. kadibna halkaani about us ay ku qoran tahay. waxaan tagi doonaa pages ayaan tagi doonaa. pages markaan tagno kadib about us waa midkaan ayaan ku dhufan doonaa. midkaani markii aan ku dhufano kadib qaybtaan ayaan soo qaadan doonaa. fiiri qoraalkaani kadib waxaan leeyahay halkaani copy
koorsadani haddii aad rabtana waad ka helaysaa marka website-yadani oo ugu horeeya Iqra Institute of Technology waa blogger course waaye oo website blogging ah oo shirkadda blogger.com aan ku sameynay oo complete course ah weeyaan. Kadib waxaan imaan doonaa halkaani hore aan usoo aragnay. Kadib waxaan leenahay basta ayaan ku leenahay. Kadib waad u jeedaa sidoo kale haddii aad rabtana image inaad ku soo darsato halkan meelahani meesha aad rabto ayaad dooran doontaa. Kadibna enter ayaa hal mar leenahay. Kadib halkan juice qaybtan falaartaas ayaa ku dhufan doonta balasta image ayaan leenahay. Image markaad upload ayaad dhihi kartaa haddii aad computerka aad ka rabto. Tusaale midkan ayaan iska soo gelinay hadda. Midkan marka aan iska soo gelino kadib halkan marka sawirkaani ayaad u jeedaa marka qaybahani asiguna inuu leeyahay marka settingiisa ayaa marka qaybahani ka mid ah. Marka large ayaad ka dhigi kartaa oo full size ayaad ka dhigi kartaa. Waxyaabihii sidii adigu aad rabto ayaad yeelan kartaa asiguna. Intaa marka aad samayso kadib aad ku qanacdo marka ugu dambeyn waxaan dhihi doonaa qaybtani publish ayaan leenahay. Publish ayaan leenahay. Intaa markaan aano kadib halkan waxaan dhihi karnaa marka view page ayaan leenahay. View page markaan aano kadib waad u jeedaa about us page-keena sidaan ayaa la inooga sameeyey. Waxaan rajaynayaa marka insha Allah taala inaan isla fahnay casharkeena maantay sida loo sameeyo about us page ama page sida loo sameeyo guud ahaan ayaan isla fahnay saan rajaynayo. waxaan idin leeyahay marka soo dhawaada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.